tababar ku saabsan maaraynta iyo qorshaynta dawada oo muddo 3 cisho ah u socday 48 xarumo caafimaad ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa. Aqoon isweydaarsigan oo ay bixinaysay hay'adda Alight oo gacan ka helaysa Baanka Adduunka ayaa waxaa ka faa'iideysanayay xarumaha uu ka shaqeeya mashruuca damal caafimaad ee ay hagto Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Somaliland. Xidhitaankii tababarkan waxaa ugu horreyn ka hadlay madaxa mashruuca damal caafimaad Dr. Maxamed Yuusuf Awcali Culimo isaga oo sheegay in midho fiican laga filayo inay ka soo baxaan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan idinku dardaarayaa in tababarkii iyo aqoontii iyo xirfaddii iyo waqtigeeda halkan joogteen ay ka muuqato xarumihiinni markaad ku noqotaan haddii laha idhaahdo oo shalay iyo bishii hore iyo sanadkii hore iyo bishan iyo maantu inay noo kala duwanaadaan insha allah haddii laha idhaahdo oo laga arko aqoontii iyo xirfaddii aad hesheen inay isbeddel ku samaysay xarumihii aad joogteen aad mas-uulka ka haydeen xarumahaas markuu isbeddelku ka dhacana bulshadeennii baa isbeddelka laga arkaya oo dadkii adeegga usoo doonanayay iyo hooyooyinkii iyo caruurtii iyo dadkeennii aad u adeegeyseen ayaa isbeddelka weyna laga sii arkaya insha allah haddii laha idhaahdo markaa horta taa waan idinku dardaarayaa ta labaad nasiib badan baad leedihiin oo 3 jeer baa mashruucu iyo fursad aad heshaan idinku intiina halkan joogtaa waa marka koowaad markii la yidhi mashruuca Somaliland ha laga bilaabo dee gobollo badan baa jiro maxaan ku dhahdaa 6 gobol halkaynu ka bilownaa baa la yidhi oo gobolka Maroodi Jeex Hargeysa ayaa la yidhi ha laga bilaabo markaa waa laydin doortay oo doorashay ahayd nasiibkiina loo wanaagsanaa waxa ugu weyn inaynu isweydiinaa mar walba inaynu isweydiinaa waxa weeye fursad baynu helno mashruucii weyna taageeraya xarumihii uu taageeraya shaqaalihiiba wax ka taageeraya dawooyinkiiba wax ka taageeraya qalab wixii loo baahnaaba wax ka taageeraya tababaradiiba wax ka taageeraya oo inaga arkayna muxuu isbeddel sameeyey mashruucii xarunta fursaddaa heshay ee mashruucii uu taageerayo iyo xarunta ku dhirsanee jaarkeeda ah ee aan mashruucii ka soconin ama mashruuc kale aanu ka socon waa in laga dareemo isbeddel weyn haddii kale imtixaankaa waxbay nagaga soo noqonaya markaa walaalayaa waxaan idinku dardaarayaa inaad arrintaa aada ugu dhug yeelataan ood marka horeba waad shaqayn jirteen iminkana sii dardargelisaan waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay macallimiintii tababarka bixinaysay qaarkood iyo mas-uuliyiin kale iyagoo si isku mid a uga warramay muhiimadda aqoon kororsigani leeyahay madaxa hay'adda Alight Axmed Cabdi Wacays oo geestiisa hadal ka jeediyey madashan ayaa dardaaran u jeediyey shaqaalaha qaatay tababarkan isaga oo hoosta ka xariiqay in maaraynta iyo qorshaynta dawadu ay tahay mid ka mid ah adeegyada ugu muhiimsan caafimaadka ee bulshada loo qabto waxaana hadaladiisii ka mid ahaa saad la socotaan dawada dee waddan ahaan warshado soo saara ma lihin dawadu waxay nooga timaadaa waxa weeyaan waddamo shisheeye weliba mashruucan damal caafimaad waxa weeyaan dawadiisu maaha dawooyin laga iibiyo waddanka gudihiisa waxaa jira standard loogu talagalay oo ah maxaa la yidhahdaaye in laga soo iibiyo maxaa la yidhahda waddanka dabadiisa runtii waxyaalaha cajiibka jecelahay inaan idinla wadaago si aad u dareentaan inaan ahayn un daweynta lasoo qaaday stoorka lasoo dhigayo la qaybinaye waxa dhacda in maxaa la yidhahdaaye masaafo aada u dheer ay dawadaasi inooga timaado lacag aada u badanna ay runtii ay naga kacdo ama ay nagu kacdo qofku shaqaduu qabanayo haddii aanu dee xirfad u lahayn waxaa dhici karta qaladaadba ka yimaada annagoo taa ka duulaynaba waxaan go-aansanay inaan tababarkan iskuukin keeno 48 xarumood ee maanta halkan ku fadhidaan maadaamay saa tahay annaga mas-uuliyaddiina saarnayd ee ahayd inaanu idinku tababarno ama waxa weeyaan aqoonta ama aqoon isweydaarsiga 3 cashaa aanu maxaa la yidhaahdaaye aan iskugu kin yeedhno annu mas-uuliyaddii waan ka soo baxnay mas-uuliyaddii ama kubaddii iminka xaggiina ayay taallaa in badan runtii mashruucan damal caafimaad qaabka uu u samaysan yahay ayaa ah inuu yahay mashruuc mar walba baahida dadka inuu ka jawaabo ay tahay